keenayaa in laga helo meesha iimaan uu jiro nabad laga helo marka dad muslimiin aan nahay dadka nala dagaalamaya waa muslim kale oo khariban weeye waxa loo baahan yahay annagoo islaamnimadeena ku dhaadanayna oo ilaahay ajir kaga doonayna waxa aan marka waardiyahaas iyo ilaaladaasna alla agtiisa ajir uga xisaabsada ogaadana xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi in ilaahay daraadii u dhaafartay oo u soo jeeday oo waardiye u qabatay uusan cadaabaynin soo bishaaro weyn ma laakiin maxay u baahantahay niyad bay u baahantahay waa diinteenni waa dadkeenni waa dalkeenni waxaan difaacayna waxaan ka celinaynaa dad cawaan u noqday shaydaan oo ka shaqaynaya dambigii ugu weynaa shirkiga ka bacdi oo ah in dad muslimiin ah oo nabad qaba oo aamin ah oo aan dhibaato geysanin la iska laayo xoolahooda la dhaco sharaftooda la baabi'iyo dadkaas marka qalad bay ku dagaalamayaan idinkuna sax waad ku dagaalamaysaan waxaad ku jirtaan marka waajihaadkii xaqa ahaa yaan diinka lidinka xigsanin oon lidin tusin in diintan lidinka leeyahay Soomaali waxay muslim ahaayeen islaamnimada oo aan Madiina gaarin umaana islaamin shabaab dartoodna ugu jirna islaamnimada kaalay soo islaam haday yiraahdaan idinkaan idinku dhalnay baan leenahay xal raa marka islaamnimada iyadoo lagu dhaadanayo in nimankaas laga dhiciyo diinta dalka laga dhiciyo oo dadka laga dhiciyo oo ubadka laga dhiciyo oo hooyooyinka laga dhiciyo oo waalidka laga dhiciyo oo waxaad ku dagaalamaysaan aad ogaataan inay tahay qadiyad xaq ah waxaad u soo jeedaan oo u daalaysaan ay tahay qadiyad xaq ah waxaad u qadi kartaan oo marka qaarkood mushaarka idinka soo daaho inay tahay qadiyad xaq ah waxaad khatarta ugu jirtaan inay tahay qadiyad xaq ah ku xiraanshaha allana ku dadaala ilaahayna waa inuu guuleynaya subxaanahu wa tacaala guusha aan ku xisaabtamayno aan doonayno inaan wada gaarana dadka juhdiga ay bixinayaan inay ku timaada aan rabno waa idinka haddii la isugu tago oo hadda isgoysyada ay ka kooban tahay magaalada oo dhan baad joogtaan soo taas ma haddaad intaa guul ka keentaan muuqata oo la yaqaano shacabku waa idin hirinayaan waa idin garab istaagayaan laakiin haddii ay dhacdo in inta la idin dhaafo shacabkii in loo gudbo idinkuna khatar baad ku jirtaan shacabkiina cabsi daraadeed kuma dhiiran karaan inay gacan idin siiyaan warka wacdaan soo ma si marka kalsoonida shacabka loo helo waa inay dhacdaan meesha tan cidii soo martaa inaanay talaabi karin wax la luqluqo waa inaanay jiri karin gacmaysi waa inaanu jiri karin waayo inaad wax gacmaysatay waxay keenaysaa inaad qarankii iibsato dhaafsato xoogaa yar ah xaaraan waay damiir la'aan waay dadnimo la'aan waay dalkiyood beecisay waay dadkiyood beecisay waay dhiigood beecisay waay sharaftiyood beecisay waay taariikhda beecisay waay inahaasoo dhan marka waxaa la rabaa in aad iyo aad maanka loogu hayo haddii ilaah yidhaahdo guushuna waa dhowdahay 91 saan ahayn iyo haddaan fiicanna 2000 saan ahayn iyo haddaan fiicanna waxaan rabnaa maantadeenna inay ka fiicnaato shalaydeena markasta berri markaan gaarno caawa saanna habeen dambe waa in habeen dambe ay ka fiican tahay caawa saan ku fadhina meesha iyada aan ku taagno bisha soo socoto waa inaan bishaan ka fiicanna oo bisha saan si fiicanna tadawur joogta waa inuu nagu socdaa maxayna ku iman kartaa shaqada loo baahan yahay qabo meel lagaga baahan yahay inaad taagnaato ha ka maqnaanin nin wasiir ah oo haddana xildhibaan ah oo ka tirsan maxaan ku dhahay sheeg dawladda Ingiriiska baa wuxuu isu casilay shaqadii uga tagay 5 daqiiqo oo uu soo daahay baarlamaanka waa 5 daqiiqo garanaysa qodob wasaaraddiisa khuseeyay baa laga doodayay wuu soo istaagay wuxuu arkay qodobkii oo la galay oo dad ay araadooda ka dhigteen wuxuu yiri waa idinka raali gelinayaa waa ka xumahay waa 5 daqiiqo maaha 6 daqiiqo dooma saacad maaha waa idinka raali gelinayaa hal ay dul qaato waxaan sheega ma aqaan cudurdaar malihi ee naftuna wax ima siinaysa buu yiri inaan cudurdaarkaas ku kaaftoome waxaan ka dhigayaa buu leeyahay ganaaxayga inaan saacada laga bilaabo wasiirkii iyo xildhibaankii iska casilay riduna ka baxay xaq u bari yiri inaan si joogo haddii marka laga waayo booska ay ahayd inaad taagnaato waa cadow soo galo oo qof soo dilo yani anagu waliba ma hadde 5 daqiiqo la soo daahay qodob laga hormariyay ma aha kii ku dhaafo 10 buu dilayaa 50 buu dilayaa 100 buu dilayaa qarax buu keenayaa marka wacdan Soomaa